Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Smartphone-adu waxay leeyihiin programmo dadka indhaha loogu talagalay oo dadka intooda badan ayna garanayn. Halkan waxaan igu soo bandhigaynaa smartphone-ka iPhone-ka program ku jira oo dadka indhaha la isticmaal yaqaan. iPhone-ka iyo iPad-ku iyagu waa isku system. Qofka indhaha qaba ama wax arkaya markuu isticmaalayo labadooda aw app-ta saa u taabto way isfurtaa, laakiin marka bahalka dadka indhaha la active laga dhigayo isma furayso. Waa in la isticmaalo faraha si kale in loo dhaqdhaqaajiyo. Matalan sociale net saan dul jooga ta kale inaan tago haddaan doono app-ta kale ku xigta waa inaan dhinaca midigta farta ama suulka aan saa idhaahdaa. Markaan sii socdaa aan saa u sii socdaa, markaan soo noqonayo inaan bidixda u soo dhaqaaqa si aan masaxayo kale farta aan masaxayo maxaa la yiraahdaa shaashada aan masaxayo kale. Markaan inaan galo app aan doonayo ama folder ama order inaan galo aan doonayo waa inaan laba jeer iyad saa u garaace wixii baa isfuray aad doonaysay. Imika matalan Chrome-kaan doonay inaan furo, Chrome-kii haddana isna laba jeer baad garaacay markaasuu isfurayaa. Markaad kasoo baxaysid ama home-ka taabani, haddii aad haysatid iPhone 6s wixii ka sarreeyana geerka shaashada taabani markaas baad iska xidhay. Chrome-tii baad iska xidhay. saddex farood ka isticmaalaysa waxaad isticmaali far quraatay, laba farood, saddex farood, afar farood. Intaasoo ku dhan baad isticmaali. Matalan saddex farood waxaad isticmaali markaad codka xidhaysid ama shaashada xidhaysid. Matalan codkaan iska yara naaqusi. Laba jeer baan ku dhiftay, codkii baan xidhay. Laba jeer oo saddex faraan ku dhiftay, codkii baan furay. Saddex jeer oo saddex aan ku dhifan. Imika afar baan ku dhiftay. Afar markaan ku dhiftay hadalkii ugu dambeeyay maxadan uu hadlay iyo copy iyo maxadan xafido copy ku sameeyay. Laakiin saddex jeer markaan ku dhifto eeg waxa dhaca shaashadii baan madoobay. Qof hadduu garab joogo waxaan sameynaa ma akhrin karaa. Imika waa kan qofka indhaha la uu iska isticmaali karayaa, laakiin qofka garab joogay ma arkayo. Laba farood haddaa isticmaalaysid matalan telefoon marka lagula soo hadlo ama waxaad dhegeysanaysid iyaad ku baktiin kuna shiday. Imika matalan wax muusigaan shiday waana baktiyay. Laba jeer iyo laba farood dhagdhag ku siin. Marka aad waxa jira farahan iyaad isticmaalaysaa marka qofkii indhaha la'aa oo farahan wada yaqaano wuxuu ku sameyn karayaa bahalkii buu xukumi karaa. Mobilkii buu kala saray, kala hoos, kala buu galaya. Imika matalan YouTube-kaan gali. YouTube-ka markaa galo meeshii raadistaan gali. Matalan aan wax raadinaye meel kastaba markaad adu active ka dhigaysid laba jeer baad ku dhifanaysaa far quraatay. Waa kan meesha wax laga raadinayo markaas baad ku qorqoray waxaad doonaysid. Matalan iPhone-ku wuxuu kaga maxadan Apple to alaabteedu iPhone ama iPad-ku iyagu waxa leedahay farta dadka tastaatuha ama keyboard-ka dadka indhaha la ayaad samayn karaysaa intaad far saa u qabatid. Baashaas baa soo saaray. Baashan waa baasha lagu qoro dadka indhaha la ay maxaa la yiraahdaa tastaatuha ama keyboard-ka ay dadka indhaha la wax ku qoraan weeyaan, maaha qofka indhaha qaba wax mar. Matalan sidan baan u dhigan saa markaan u dhigtaan waxaan doona qoray. saasoo kale aan u qori karayaa. Matalan barnaamijka iOS-ka markaad activeynaysid waxaad gali Einstellung oo Jarmal ah, laakiin af Ingiriiska wax la yiraahdo settings baan u maleynayaa. kadib waxaad kasii gali Allgemein oo ah Journal. kadibna waxaad kasii gali Bedienungshilfe oo waxa weeyaan af Ingiriis baan u maleynayaa accessibility wax aynkaas oo kale tahay. kadibna waxaad kasii gali voice over. markaas baad voice over-ga baad active ka dhigi.